وهذا سلام أخيرا يميل باجوكتان أريرو دقدقة أنا ربنا إن كله ذاقو أو كسابسن لغة إنجليزية كي استعمال كذا dad badan oo waxa arkay oo dadkayga kamid ah Soomaalida oo markay ku hadlayaan luqadda Ingiriiska ama ay wax ku qorayaan adeegsanaya ereyad adag oo waaweyn oo marka iyagoo iska doonaya ama iska dhigdhigay inay luqadii dhameeyeen ama ay ku faanayaan ama dadka iska gadayaan balse nasiib darro aqoonta qofka waxa lagu gartaa luqadda fudud uu isticmaalo marka qofka uu ma aragtay khudbeynayo ama wax uu qoraayo adduunka hadda waxa la isku dhaafay oo qofka lagu qiimeeyaa luqadiisa ama waxa uu ku hadlayo in qof walba uu fahmi karo sidaas darteed ayaa qofka aqoon-yahanka ah oo ama buwaag daabaco ama madax ah ama khudbad jeedinayo marka la tafatirayo ereyadiisa iyo qoraalkiisa ama la daabacayo waxa lagu qiimeeyaa in luqadu adeegsanayo uu fahmi karo qof professor ah oo heer academic ah iyo qof caadi ah oo basic ah inuu fahmi karo labadaasba qof inay fahmi karaan iyo inta u dhaxayso xitaa editorada markay wax tafatirayaan waxa ma aragtay ka jecelin qof walba qofka luqadiisa fudud inuu wax ku soo qoro ayaa ma aragtay la qadariyaa oo xitaa la daabacaa qofka wax adag soo qoro markii hadhow xitaa tartan agelaysid in waxa lagu daabacaa arabtid waa laga soo tagayaa maxaa yeelay waxay cadeynaysaa in aad hal qolo kaliya la hadlaysid ama aad fahansaneenba muhiimadda ay leedahay xiriirka dadweynaha oo aad rabtid oo la rabo in qof walba fariintaada ay gaadho marka haddii aad isku daydid mar dambe inaad luqadda isticmaashid fadlan خاص أحنا دارتي إن دتك فهمان أما دوني سحتة إن تستي دتك إن أخون لا ده وحيرو فضود وقفل بفهمي كرا استعمال تاس أي لو قيمة هي الدنيا ده هذا اللي تجوبه وحرجينا أنا وحكي فهمتي فرينتنا هذيك وأنفع عليه فلن لو ذاك أصحاب هذا وحي ضد يكومنت أكقبتنا كومنت يقول صريب ما هتسند